waan idin salaamay dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigno fadlan haddii ay tahay markii ku guuraysaa janaalkeena soo booqanayso subscribe inoo saar haddii muuqaal ku cajab geliyana sidoo kale like inoo saar lana wadaag saaxiibadaada maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimka caanka ah Diljaal ka oo kamid ah aflaamta ay Soomaalidu inta badan ay aadka u xiisayso daawashadiisa haddaba soo dhawaada saaxiibayaal Diljaal ama filimka Diljaal waxa uu soo baxay 27 Sebtembar sanadii 1996 filimkan waxaa hogaamiyaalka wadaha Ajay Devgan Madhu Sonali Bandara Barmit City ninka lagu magacaabo Shakti Kapoor Gulshan Garover Soomaalidu dhaxaraar ay dhahan Amrish Buuri oo sidoo kale Soomaalidu ay dhahan in Salim Zee Farida Jalal Akshay Khurana Rakesh Bedi iyo sidoo kale Aruna Bakshi haddii aan eegno filimkani waxaa director ka ah Hadi Bawija ninka lagu magacaabo halka soo saar uu ka yahay walaalkiisa Barmajid Andehe Bawija sidoo kale filimkan waxa muusigada u garaacay muusigiistaha caanka ah Nuur Malik heesahan waxa qoray ninka caanka ah Javid Akhtar waa abaha dhala Farxaan Akhtar haddii aan eegno filimkani tiyaatarada la saaray saaxiibayaal filimkan waxaa la saaray 225 tiyaatar lacagaha lagu qaraj gareeyay waa 5 karoor lacagaha uu soo xareeyay ama ka soo xareeyay gudaha dalka Hindiya waa 9.9 karoor markaan eegno wadarta guud ee daafaha caalamka ka soo xareeyay waa 16 karoor saaxiibayaal sidoo kale filimkani natiijo aan waxa uu noqday filim hit ah ama filim guul weyn gaaray saaxiibayaal ama natiijo fiican ayuu gaaray markaan eegno filmadii soo baxay 96 kaalinta uu ka galay filimkan waxa weeyaan waxa uu ka galay ama lacagaha ugu badan waa filimka tobanaad ee lacagii ugu badnaa soo xareeyay sanadii 1996 markaan eegno xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay filimkani xaqiiqada koowaad gabadha magaca ku jilaysa Radhika waa gabadha lagu magacaabo Sonali Bandara filimkan magac ahaan waxay ku jilaysay Radhika marka hore booskeedu waxaa loo bandhigay ama dooqa koowaad ee booskaas waxay ahayd gabadhii caanka ahayd ee Juhi Jalwa laakiin waa iska diisay waa mooy ay diiday filimkaani inay jisho sababtan lama shaacin kadib diiditaankeedii waxaa lagu bedelay gabadha lagu magacaabo Sonali Bandara xaqiiqada labaad ninka lagu magacaabo Milanda Kuneji ee Soomaalidu u yaqaanaan Saalax Dheere ninka wax tarjumo weeyaan laakiin dad u bartay magaciisa maadaama uu tarjumo ninkaani ama tooraha geelkana qaar ayaa dhahe Milanda Kuneji ayaa marka hore loo bandhigay booska aktarka lagu magacaabo Barmit City laakiin directorka filimkan waxa ka codsaday Milanda Kuneji inuu iska xiiro garka ama uu garka iyo yacni garkiisa uu xiiro laakiin waa iska diiday Milanda Kuneji sidaa darteed booska waxaa loogu bedelay booskaas kadib waxaa lagu bedelay Barmit City ninka lagu magacaabo koor laakiin inta aan ninkaasi loo dhiibin waxa sidoo kale filimka loo bandhigay jalaaga caanka ah Sunil Shetty ama Balwan laakiin Balwan xilliga waxa ku mashquulsanaa duubista filimka caanka ah ee Border-ka oo noqday filimkii ugu weynaa ee soo baxay sanadii 1997 kadib diiditaankiisa ninka lagu magacaabo Milanda Kuneji booska waxaa si waada ah loo siiyay ama jaanis u helay ninka lagu magacaabo Barmit City waa aktarka la jecel ama atrishada Sonali Bandari jeclaanayo ee filimka militariga ka ah weeyaan qofka fiirsada ayaa yaqaan filimkani xaqiiqada saddexaad hadii aan eegnana waxa la leeyahay koor Amrish Buuri ama Salim Zee booskiisa marka hore waxa loo bandhigay inta uusan sameeyay andhe waxa loo bandhigay ninka lagu magacaabo Raza Murad ama guri dheere ama guri ninka u taqaanaanba laakiin ninkaas waa iska diiday inuu filimkan sameeyo waxaan lagu bedelay booskiisa Amrish Buuri oo filimkan kaalin weyn ka qaatay saaxiibayaal markaan si eegno xaqiiqooyin kale laga diiwaangeliyay waxa la leeyahay Ajay Devgan ama filimkan waxa la leeyahay waa filimkii ugu horeeyay Jilan Ajay Devgan sidoo kale Sonali Bandara kadib filimkan waxa iskala soo muuqdeen aflaamta kala ah Major Sab iyo sidoo kale Zaqmi iyo filimkii caanka ah ee Jori taa oo ay ku weelisay gabadha lagu magacaabo Rani Mukhraji xaqiiqooyin kale haddii aan si eegno laga diiwaangeliyay filimkan waxa kamid ah saaxiibayaal waxa la leeyahay filimkan wuxuu ka mid noqday aflaamta Bollywood-ka ee 96 soo baxay lagana daawado tiyaatarada dalka Canada sidoo kale xaqiiqooyin kale waxa qayb ka ah sidoo kale filimkan inta aan la sameeynin ama qabanqaabadiisa markii inta lagu gudo jiray waxa loo bandhigay dilaaga lagu magacaabo Didiya Banjoli ama Nawab ama Indabaliil waxa uu taqaano in uu jilo booska atooraha Barmit City laakiin waa uu iska diido filimkan waa uu isaga baxay markii dambe sidoo kale xaqiiqooyin kale waxa kamid ah ama xaqiiqooyinka ugu dambeeya ay kala wadaagi doonaan waxa weeyaan waxa la leeyahay filimkani waa filimka labaad ee Bollywood ka sameeyaan ka oo loogu daawashada badan yahay barta YouTube-ka filimka kaliya ee ka horeeyay waa filim oo isla Ajay sameeyay ama Ajay uu jiray waana filimka caanka ah ee Dilwal marka waxa la leeyahay ama filimkani Diljaal iyo Dilwal waa labada filim kaliya ee Bollywood ka sameeyaan ka oo loogu daawashada badan yahay barta YouTube-ka waxaa daawaday aflaamtaani
ama filimka koowaad haddaan ayna dilwaal oo kale waxaa barta youtube ka daawatay in ka badan 289 milyan oo shakhsi ayaa ka daawatay youtube-ka halka filimkani dilwaal ama diljaal aan dhehe ay daawatay in ka badan 258 milyan oo shakhsi saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xogtii iyo xaqiiqooyinkii aan kala wadaagina filimka caanka ah diljaal ama qalbi xulcay waxa uu taqaanaaba fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar haddii aad janaalku cusub tahana subscribe inoo saar waad mahadsantihiin saaxiibayaal